Masiirka kumanaan kun oo reer Tongan ah ayaa ahaa maalmihii la soo dhaafay mid aan la hubin kadib markii uu qarax xoog leh ka dhashay foolkaano badda hoosteeda ka dhacay jasiiradda Tonga ee badweynta Baasifiga. Magaalada caasimadda ee Nuku'alofa, mowjado tsunami ah ayaa ku dhuftay sida ay sheegayaan dad u dhow jasiiraddan. Wadamada Australia iyo New Zealand ayaa isku diyaarinaya inay u diraan maraakiibta badda aaggaas, kuwaas oo sida biyo iyo agab kale oo muhiim ah. Daruur dambas oo fidsan ilaa 60,000 oo fiid ayaa la micnaa inayna suuragal ahayn in la sameeyo sahan xagga hawada ah. Mowjadaha tsunamiga ayaa cirka isku shareeray kadib markii qaraxii xoogganaa ee foolkaanaha ee Sabtidii dhacay, taasoo keentay in maamulka labada dhinac ee Baasifiga ay uga digaan dadka inay ka guuraan xeebaha qaar si ay uga fogaadaan khatar ka iman karta. Ugu yaraan 6,000 oo qof ayaa ku nool Hubei oo dhowr jasiiradood ka kooban. Sida ay soo warinayaan saraakiisha ku howlan ayaa sheegay in aanay weli wax wara ka helin jasiiradaha bannaanka iyo meelaha kale ee xeebaha ku teedsan, kadib markii fiilada isgaarsiinta badda hoosteeda ay go'day, taasoo ay u badan tahay xarunta digniinta tsunamiga qaranka Mareykanka ayaa soo saartay la talinta tsunamiga Hawaii iyo xeebaha galbeed oo ay ku jiraan Washington, Oregon, Alaska ayaa galinkii dambe sheegay in khatarahaasi ay dhaaftay. Adeegga cimilada qaranka ee Portland ayaa ka warbixiyay mowjado 1 ilaa 3 agood ku teedsan xeebaha Washington. Fiidiyow baraha bulshada la soo geliyay ayaa muujinaya mowjado ku soo qulqulaya guryo ku yaala xeebta Tonga kadib markii ay dhaceen qaraxyadii u dambeeyay ee foolkaanaha.